halkana dhalo warka ahaan base warna sheeg anigoo maxamed Ismaaciil Maxamed oo ahaa doorka qaaska ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa mahan warbaahinta la saddex marayay gaariga ee madaxweyne ku-xigeenka oo la tagay doorka madaxweyne ku-xigeenka arinta waa dhab weyn jirta wana cadeynaya laakiin waxa la siyaabana ninka mas'uulka ah ee mas'uuliyiinta sheegta ee Puntland waliba jananka cabsi afguud oo kale oo xaqa baahinaya dhalinyarada mise shaqaalaha ka tirsan madaxtooyada Puntland ee yiri gaari madaxweyne ku-xigeenka lama baxsan gaari booliska la baxsaday arinta waxa oranaya waa been waxba kama jiraan gaari madaxweyne ku-xigeenka qofkii la tagay waa nigad waa daruurkiisi waxaan loo tagay sababa xuquuq aan leeyahay in la raadiyo haddana gaariga madaxweyne ku-xigeenka wad mahadsantahay waa su'aal aad u fiican waxaa kilifay muddo 2 sano iyo 4 bilood gaariga waday bishaar waxaan qaatay 2 bilood oo qura kaligeena kama hadlay madaxtooyada dhammaan ka hadlayaa dhammaan shaqaalaha madaxtooyada ka tirsan kaligeen maaha inaa kaliya isku koobay xuntahay saraakiil baa leh waxaa la shaqaale hoose shaqaale kore inta mushaarkooda way laasan yihiin dabeedna waxaa loo soo baxsay gaari anuu raadinaya xuquuq aan leeyahay inaan la galo meel liga xuquuqda aan ku heli karo haddana odayaalkii waa gaariga iga wareejiyey si wax cabsi qafku u sheegayaba ma aha gaariga booliska haddana waxaa gaariga iga wareejiyey odayaalkii iga beeshayda ahayd mid sida gudoomiyaha saddexaad ee baarlamaanka oo kale mudane xaajiwaal oo kale waxaan oran lahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada waan u dacwooday waraaqaan u geeyey dabeedna waraaqihii uu iga soo jawaabi waayey muddo 2 sano iyo barna waad garan kartaa xuquuqda aan lahaa in raadiyinta waxaan halkaa u baaqayaa hadalkan kusoo gabagabeynayaa mas'uuliyiinta Puntland ee ugu sareysa waxaan oran lahaa shaqaalaha iyo ciidamada Puntland hala si xuquuqda leeyihiin waliba si degdeg loo siiyo waxaan ka codsanayaa maadaama hadda aan ka madax banaanahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa saxaafadda dhammaan dadka jaraadaha qorwarka ee gudbiya gaariga inuu soo tagay xuquuqdana uu la doodayay ee qoray website maalintii waxaan ka qarsanayay wiilkoo siin kari waay madaxweyne ku-xigeenka Puntland lacagtiisa gaarigiisa la baxsaday arrinta way jirtaa wana dhab